Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada kanaalkeeni Warsida Media oo alaaba aad ka heli jirteen warar iyo warbixino muhiim ah. Haatanna waxaan rabaa maanta inaan halkan idinkula wadaago su'aalo fara badan oo isweydiinayaan dadka suuqan waxa weeye investorska ka ah ama traderska ka ah oo ay ka mid yihiin ma inaga dhamaaday bull rankii ma intan ku ekaaday oo bull rankii ma inaga dhamaaday altcoin seasonkii May masaasuu nooga dhamaaday mise weli waa inoo dhiman yahay. Su'aalahaas iyo su'aalo la mid ah baan rabaa halkan inaan idinkugu soo gudbiyo. Ugu horreyn si horta aad u fahantaan altcoin seasonkii inaan galnay inaanan weli gelin in lagu jiro inuu naga dhamaaday waxaan rabaa inaan tusaale idinka siiyo Bitcoin dominance BTC dominance. BTC dominance waxaa la yiraahdaa lacagta ku jirta crypto oo dhan marka la isu geeyo boqolkiiba boqolley marka loo qaybiyo intee in la eg percentage intee la eg baa ku jirta baa Bitcoin ku jirta. Ma garatay suuqan 2014 ilaa iyo 2016 intii u dhaxaysay suuqa crypto lacagta taalo oo dhan 96 97 up to 99% waxay ku jirtay BTC. wixii muddadaas ka dambeeyay marka waxa soo baxay wax la yiraahdo altcoins waxa yimid Ethereum XRP iyo coin kale oo fara badan oo altcoins oo BTC suuqa ku compare gareeya yimid. Saas daraadeed marka lacagta ku jirta BTC da hoos badan bay u dhacday. Dominance-ga BTC hoos buu u dhacay lacagta waxay aaday altcoins-ka marka ay altcoins-ka lacag fiican ay sameeyaan. Waxani marka BTC dominance-ga waxay inaga caawinaysaa inaan fahanno lacagta suuqa taala ma waxay ku jirtaa Bitcoin oo kaliya mise altcoins-kana waxa weeye percentage intee la eg baa ka taala. 2016kii 17kii wixii ka dambeeyay hoos u dhac fara badan baa ku yimid ilaa Bitcoin BTC dominance-ga uu ka yimaado 37% lacag xaddi aad u fara weyn bay hoos ugu dhacday. Lacagta hoos u dhaca ku yimidna lacag suuqa ka baxday maahan lacagtaasi waxay aaday altcoins-ka. wixii intaa ka dambeeyay marka waxaanu galnay bull run fiican bull runkii noogu dambeeyay ilaa 2020 ilaa 2021kii waxaa soo noqday marka Bitcoin dominance-gii waa soo noqday lacagtii waxaa la isugu geeyay BTC xaddi fara badan baa BTC-ga tegay suuqa sare u kac fara badan buu ka yimid up to 80 68 69 buu gaaray. Marka percentage-ka lacagtaas taala crypto oo dhan BTC waxay ka gaadhay 72% bay gaadhay. Haddii marka aanu ku qiimeyno altcoins-ka intee in la eg baa kaga jirtay. altcoins-ka marka sidee ahaa xaalkiisa. Okay altcoins-ka marka haddaan idin sheego altcoins-ka waxaa lagu cabiraa waxaa laga qaataa tusaale waxaa laga soo qaataa Ethereum maadaama suuqa intiisa badan uu ku dhisan yahay coinanka badan ee yaala suuqa oo altcoins-ka intooda ugu badan ay ku dhisan yahay Ethereum waxaa laga soo qaadaa marka Ethereum dominance-ga. Haddii marka isbarbardhig aan ku sameyno mar alaala markii bull rank uu imaanayay oo BTC-ga sare u kac fara badan ay sameynaysay oo ilaa 68 ay gaartay sidaas la mid ahna Ethereum sare u kac xaddi aad u weyn buu sameeyay waa marka altcoins-ka ay suuqa lacag fiican inoo sameeyaan. Hadda marka xilligan hadda la joogo waxaa ujeedaa xogaa conversion xogaa waxaa dhacday iska horimaad baa ujeedaa. BTC dominance-gana sare u kac buu sameynayaa altcoin dominance-gana hoos u dhac buu sameynayaa. Anaga marka altcoin seasonkii weli ma la galay mise lama gelin. Of course waxaan leenahay wax altcoin season ah oo weli la galay ma jirto. Lacagta xaddiga ugu faraha badan weli suuqa waxay taalaa dominance-ga BTC dominance-ga. goorma marka altcoin seasonka la galaya. Altcoin seasons waxaa la galayaa marka halkan flip uu ku yimaado oo suuqa halkan iska bedel uu kaga yimaado oo altcoin-ka uu sare u kacna ku yimaado
bitcoin dominancygana uu hoos u dhac ku yimaado. Markaas way marka annagu aan lacagta ugu fiican aan suuqan ka samayn doono hadduu ilaahay idmaayo. Marka asxaabta qabta altcoin seasonkii waa la galay, iyo asxaabta qabta hadduu ilaahay kuu roon yahay bull runkan weli lama gelin. Waxaan jeclahay inay halkaas kaga jaahil bixi doonaan. Altcoin seasonkii waa inoo dhiman yahay, suuqana weli la isma gaarin. Inkastoo BTC-na aanu filayna sare u kac fara badan inay samayso, sidaas la mid ahna suuqa altcoinska sare u kac fiican buu samayn doonaa. Hadda inta BTC kasoo dhacday iyo inta altcoin kasoo dhacday waxaa badan inta BTC kasoo dhacday. Sidaas la mid ah recovery bay samaynaysaa, laakiin weli waxaa inoo haray BTC-na recovery bay samaynaysaa, sare u kac bay u socotaa. Altcoinskana hoos u dhac ayaa ka muuqdo. Marka altcoin seasonka la galo waxaa dhici doonta in halkan uu isbedel ka yimaado oo BTC-gana ay hoos u dhac samayso, BTC dominancyga, altcoin dominancygana uu sare u kaco. Marka way marka suuqa annaga coinanka inta badan aan haysano oo aan maal gashano in lacag fiican oo fara badan laga samayn doono hadduu ilaahay idmaayo. Waxa kusoo haray marka bull runkii ma inoo dhammaaday mise weli inooma dhammaanin. Haddii aan taariikhda dib ugu noqono oo aan hadda BTC keliya aan dib ugu noqono, inta taariikhda la hayo weli ma aanay dhicin in bitcoin intay dhaqaaqdo oo all time high-ga ay gaarto, all time high-ga inay intay gaadho haddana iska soo noqoto halkaas uu inooga dhammaado bull runka oo dib bear market loo galo. Taariikhda weli ma aysan dhicin. waxaa dhici jirtay sida caadiga ahayd bitcoin markuu sare u kac sameeyo, all time high uu gaaro, suuqana hadduu ilaahay kuu roon yahay halvingka la galo, in xoogaa aanu galayno accumulation ah ama haddii xoogaa yaro correction ah, kadibna suuqa si caafimaad leh sare u kac fiican uu samayn doono. Haddii marka chartiga si chartiga ah oo technical analysis haddaa idinkugu sheego, sida caadiga ah haddaa aragto dhaqaaq oo impulse iyo correction buu sidiisaba suuqa ku shaqeeyaa. Impulse intaa waxaa la isku yiraahdaa dhaqaaq, intaana waxaa la yiraahdaa correction. Marka suuqan haddaa aragtid impulse waxaa sugaysaa sidiisaba waa inuu correction noo dhaco si suuqa si caafimaad leh oo inoogu dhaqaaqa. In any case wax kasta uu yimaada ama dhaqaale xumo ku dhacday dunida ha noqoto ama hadduu ilaahay kuu roon yahay xaalado kale oo suuqa lasoo gudboonaada ha noqotee, waxaan filnaa oo halka aan ka filnaa waxa weeye inuu correction inoo yimaado. Dhaqaaqa hadda inoo dhaqaaqay wuxuu kasoo kacay ilaa iyo 15. Hadda waxaan joognaa all time high-gii ugu sarreeyey baa weliba aan jebinay. Wuxuu suuqu dhaqaaqay in gaaraysa ilaa iyo hadduu ilaahay kuu roon yahay percentage fiican ah ayuu inoo dhaqaaqay. Suuqa hadda waxaan ka filnaa marka inuu correction samaysto. Correctionkaas hadduu gaaro ilaa iyo 47 sida aniga hadda aan ku cabiray, ilaa 47 hadduu gaaro it's normal. Maxaa yeelay halkan waa meesha keliya oo uu suuqan hadda ku hakan karo. Hadduu halkan uu hoos uga sii dhaco, then it could be a little bit worse, laakiin uma malaynayo, ma filayo suuqan xilligan hadda la joogaa BTC hadday correction samayso ilaa waxay soo gaari doontaa 48 up to 50. wixii intaa ka dambeeya suuqa inuu caafimaad inoogu dhaqaaqo ayaan rajeynaa technically. Fundamentally waxaa ka warhaysaan in la ansixiyey suuqan bitcoin ETF wax la yiraahdaa la ansixiyey. Sidoo kale Mareykanka laga ansixiyey, China-na waa laga ansixiyey bitcoin and ethereum ETF. Haddii marka suuqan Cabdi iyo Faarax iyo Xasan iyo Xuseen iyo Xaliimo isku tegey oo lacagtooda maal gashtay ee suuqan soo gaarsiiyeen ilaa iyo 68,000 70,000 ay soo gaarsiiyeen, ma qiyaasi kartaa marka haddii kambaniyadii waaweynaa ee hantida haystay ee lacagtii adduunka oo dhan ku fidiyey ay suuqan soo galaan oo bitcoin ay iibsanayaan maalintii averageka maalintii la iibsado oo BlackRock iyo Fidelity ay iibsadaan waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 10 BTC marka iyo wax kasii badan. Haddii marka averagekaas maalin walba ay iibsanayaan, ma qiyaasi kartaa marka wax soo saarka bitcoin uu hoos u dhacay
ma qiyaasi kartaa intee in la eg buu suuqan inoo gaari karaa haddii xaddiga lacageeda ay haystaan oo percentage ahaan loo qaybiyo haddii 5% keliya uu suuqa kiribto soo galo waxaa la qiyaasayaa ilaa iyo inuu gaaro ilaa iyo hadduu ilaahay kuu roon yahay 120 125 maximum 200 kun inuu noo gaaro baa la rajeynaya ilaa 300 kun haddii marka sidoo kale aan fiirino rainbow chartka haddaan fiirino rainbow chart BTC rainbow chart okay bitcoin rainbow chartka intii BTC ay soo jirtay oo dhan marna ma uusan khilaafin cabirka uu inoo sheegi doono baa isagana insha allahu tacaala halkan ayaan idinkugu falaqeynayaa si yaroo oo kooban hadduu ilaahay idmahayo okay sida caadada ah halkan waxaa uga jeedaa mar kasta oo uu halvinka fiiri last saddexdii haafin ee ugu dambeysay halkan waan tusaale yar idinka siinaya mar kasta oo uu suuqa uu hoos u dhac yimaado oo la galo bear marketka dabayaaqadiisa waxaa dhacda correctionkaas markii halvinka la gaaro suuqa immediately hore kama boodo sida halkan idinkaga muuqato ama halkan idinkaga muuqato waxaa la galaa waxoogaa sideways ah muddadaa sidewayska ah baa hadda inoo hartay hadda halfinka kii ugu dambeeyey kii kasii horreeyey marka la dhacay kadib waxaa la galay waxoogaa yaroo correctionkaas markii inoo dhammaadayna waxaa aragtaa suuqa ilaa halkii ugu sarreysay ayuu ka gaaray saddexdii hadduu ilaahay kuura buuran ee ka horreeyey kii 2021kii suuqa maadaama lacagta ay ku jirtaa lacag yaroo xadidan ay ahayd wuxuu u gaari jiray ilaa meesha ugu sarreyso oo red line-ka ah laakiin 2020gii waa uu ka duwan yahay 2020gii iyo 2021kii ma gaarin ilaa meeshaas ugu sarreyso halkaas ugu sarreyso suuqa hadduu tago waxa uu gaari lahaa ilaa iyo 80 ilaa iyo 81 ma uusan gaarin maxaa yeelay suuqa lacagta soo gashay baa lacag aad u weyn ahayd markasta uu suuqu weynaado dhaqaaqa uu BTC sameynaysana qayb bay ka qaadanaysaa oo markaa wuu isu soo dhibahayay good hadda marka waxaanu galnay halving sida aan filayno ama caadada inoo ahayd oo aanu kasoo arkayno chartigan rainbowga ah waxaan filaynaa waxoogaa sideways ah inaan galno bil ilaa 2 bilooda wixii ka dambeeyana suuqa dhaqaaq fiican uu sameeyo haddii marka uu gaaro ilaa hadda halkan yellowga ah hadduu suuqu gaaro ilaa 2025ka up to 2025 dhammaadkiisa ilaa iyo bisha 6aad hadduu noo gaaro marka waxaa la filayaa BTC inay gaadho 280 ilaa 290 ilaa 300 kun haddii marka uu dhaafo oo uu sii gaaro marka red line-ka hadduu gaaro wuxuu gaari doonaa ilaa 300 kun laakiin annaga haddaa waxoogaa realistic aan noqono suuqa waxaanu ka filaynaa ilaa inuu inoo gaaro 120 125 up to 200k hadduu ilaahay idmaayo ma garatay intaasna waa forecasting yar oo aan suuqa aanu ka sameynaynay hadduu ilaahay yidhaahdo waxaanu filnaaba waa inaan waxoogaa yaroo correction halkan aan ka galno kadibna hadduu ilaahay yidhaahdo dhaqaaq fiican oo aad u weyn ah aanu galno sidoo kalena altcoin seasonkii weli ma aanan gelin waa inoo dhiman yahay lacagta xaddiga ugu faraha badan weli waa 50-50 flip ma aysan dhicin markuu isbedel yimaado sida caadiga ah marka la gala bull ranka lacagta marka ugu horeyso BTC bay gelaysaa dhaqaaq fiican buu sameynayaa kadibna lacagta BTC laga soo saaray baa waxaa la iskugu geenayaa altcoinska markaasuu dhaqaaq aad u waali ah ayuu sameyn doonaa oo lacagta BTC ku jirta haddii altcoinska la keeno maadaama uu ka market cap yar yihiin dhaqaaq aad u waali ah bay sameeyaan sida caadada ah marka insha allahu tacaala waxaan isu diyaarin doonaa bull rankii abid ugu weynaa maadaama dadkii hantida lahaa oo suuqa
adduunyada dhaqaalaheedii haysto oo dhan hadda ay isugu imaanayaan ay iskugu imaanayaan crypto, maadaama suuqii caadiga ahaa ee stock marketska iyo real estateska loo bedelayo blockchain, maadaama kambaniyadii waaweynaa ay ugu soo biirayaan. Suuqa crypto wuxuu isku bedeli doonaa meel ay dunida oo dhan isugu timaado, dhaqaaq aan weli la arag oo horey aan loo aragn inaanu gaarno ayaanu rajaynaynaa. Marka insha allahu tacaala nagu xidhnow. Haddii aad nagu cusub tahay channelka noo subscribe garee, haddaa horey noola joogtayna laagta noo saar, lana wadaag asxaabtaada. Waxaanu idiin soo gudbin doonaa warbixino iyo wararka suuqan oo asaasiga oo muhiimka ah. Sidoo kalena waxaan asxaabta suuqan ku cusub aan usoo gudbin doonaa platformyada iyo channelada ay ku trade gareyn doonaan. Waxaanu mar walba idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha aan u aragno inay wax badan wax ku ool ay u yihiin bulshada. Insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo nagu xidhnow mar walba. Aad baan idiin salaamaynaa. Waa inoo iyo next bull run 2025.